waxaan kale oo si adag u cambaaraynayaa xarigii xogeyaha guud ee golaha wakiilada oo aan waaran qabasho loo keenin oo ahayd in la soo ogeysiiyo marka la qabanayo golaha wakiilada iyo guddoomiyahaba ilaa haddana aan la soo ogeysiin golahan sababta loo xidhay waxaan isku dayay inaan booqdo xogeyaha guud hase yeeshee ciidanka saldhigga dhexe waxay diideen inaan booqdo anigoo ah guddoomiyihii golaha wakiilada waxaa loo diiday xaaskiisii waxaa kaloo loo diiday ehelkiisii inay booqdaan cuntadana waa loo diiday in loo geeyo marka falkaana si adag baan u cambaaraynayaa dariiqa loo qabtayna mu ahayn dariiq sharciga waafaqsan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. taliyaha booliska ilaa maalintii ma garaacayay taleefankayga ma qaban. laba kelmadood yar oo gaan baan odhanayaa oo saaka guddoomiyaha golaha wakiilada aan imika websaytyada ka arkayay. horta waxaan idiin sheegayaa xogeyaha guddoomiye xidhan yahay sharcigaana la horgeeyay maxkamadda la horgeeyay. taasi waa taa intaasaan kaga jawaabayaa. waana shaqaale dawladeed xogeyaha guud waa shaqaale dawladeed xildhibaan maaha. taasi waa taa talabaad waxaan idiin sheegayaa inaan wax xuquuqa iyo wixil ehela oo loo diiday aanay jirin. saaka waxaa la yidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kaa la sii sido. saaka waxaa booqday boqor cismaan aw maxamuud hooyadii iyo xaaskiisuba way arkeen saaka waana wax cad oo loogiyey. marka wax loo diiday iyo raashin loo diiday iyo ehel loo diiday midna ma jirto. taasaana caddaynaysa inaan cid loo diidin. ta kale erey kaluu baan ka jawaabaya halkuu guddoomiye u leeyay aniga horta ilamuu soo xidhiidhin. maraha mustawiisu da inuu saldhigga tago guddoomiyaha. waxaanu watay 5 baabuur meeshuna waa xabsi waa station dee 5 baabuur oo guddoomiye wato dad ka buuxaan oo ilaaladiisu ku jirtaana dee station ma gelayaan xabsi dad ku xidhan yahay. taana intaasaan kaga baxaya. Batir Koosar Maxamuud, Star TV, magaalada Hargeysa.